wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta ee federaalka ee Soomaaliya war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku cadeysay habraaca doorashada baarlamaanka iyo madaxtooyada Jubbaland oo bisha 8aad oo ay maalmo ka dhiman yihiin lagu wado in la soo gabagabeeyo ama ay qabsoonto. war-saxaafadeedka ayaa u qornaa iyadoo la tixraacayo mabaadi'da iyo habraaca guud ee doorashooyinka dawlad goboleedyada ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee soo baxday 25 May sanadkan 2019 ayaa waxaa laga doonayaa madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale dawlad goboleedka Jubbaland inay u hoggaansamaan dhammaan isla markaana dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ay kala shaqeeyaan arrimaha soo socda. waxaa la yiri kow waa in liiska odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah ee isla wada ansixiyaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland. laba odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee Jubbaland waa in ay soo xulaan xildhibaanada golaha wakiilada Jubbaland iyadoo halkii kursi loo xulayo hal xildhibaan oo kaliya ama hal magac halka hadda Jubbaland ay 3 qof u soo xulayso. 3 si loo xaqiijiyo doorka ay haweenku ku leeyihiin golaha wakiilada Jubbaland waa in beel kasta oo leh 3 xildhibaan ay hal kursi u qoondeeyaan haweenka. haddii beeshu ay leedahay 5 kursi waa in 2 kamid ah ay u qoondeeyaan dumarka ama haweenka ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. qodobka 4 goobta doorashada madaxweynaha waa in ay noqotaa akademiyadda booliiska Jubbaland ama xarunta qaramada midoobay ee magaalada Kismaayo si loo fududeeyo geedi socodka doorashada iyo ka qayb qaadashada goobjoogayaasha caalamiga ah min bilow ilaa dhammaan doorashada Jubbaland. qodobka ugu dambeeyay ee shanaad waxaa lagu yiri geedi socodka doorashada maamul goboleedka Jubbaland waxaa goobjoog ka noqon doona wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo wakiilo ka socda beesha caalamka. intaas ayuu ku egyahay war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya. waxa uu daba joogaa jadwal doorasho oo ay xalay soo saareen xubnaha guddiga ah ee doorashada ee maamulka Jubbaland oo jadwalkaasi lagu cadeeyay sida ay wax u maamulaan doonaan. weli ma jirto wax warar ka soo baxay dhinaca Jubbaland xiriir aan la sameeyay wasaaradda arrimaha gudaha si aan wareys ula yeelana nooma aysan suurto gelin wixii arrimaha ku soo kordha. wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaa saaxiibayaal ku maqli doontaan.